qaatiirta la kulmay iskaana la saaray sawirro la saaray niro hospital aan geeyey isbitaalka aan geeyey sawirro iyo video laga duubay macnaha waxaa laga qaaday waxyaalo badan waxaa maanta loo sheegay inay tahay qof rag ah wiil ama rag ah ay tahay marka waxaa loo sheegay xubnaheeda jirka qaybo ka mid ah in macnaha dhaawac la soo gaarsiiyey maadaama ay noo sheegtay inay ku dhalatay baadiyo waxaa xubnaha dhaawac laga gaarsiiyey waxaa ka mid ah dadkan ayagoo aqoon u lahayn macnaha qofkan dhibanaha ah ayay waxay kula carareen waxa la dhahayo gudniin waxay dhaawaceen qaybtii macnaha raganimada ah ayay macnaha dhaawac ka gaarsiiyeen waxay kaloo dhaawac ka gaarsiiyeen qaybta macnaha ragga oo macnaha xaniyaha ah oo qarsanaayeen ayaa qalitaan iyo waxyaalo ay ku sameeyeen maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin sawirada waa arkay dhakhtarka waa la kulamay wuxuu ii sheegay dhakhtarka in xubnaheeda qaar ka mid ah ay gudaha ku jiraan oo macnaha xubnaha taranka ee macnaha ragga ah inay gudaha ku jiro u baahan tahay qalitaan waxay gelaysaa marka saddex qalitaan mid lagu sameynayo macnaha xubnaha kore jirkeeda oo lasoo saarayo loo soo dejinayo hoos iyo mid maxaa la dhahaa ii sheeg xubnaha taranka ragga ah oo dhibaato la gaarsiiyo xataa waxay u badan tahay in la jaray oo u baahan doonto in wax lagu sameynayo plastic surgery ama macnaha la habeyn doono iyo maxaa la dhahaa qalitaan kaleeto ayadana macnaha ii sheeg oo howlaha sidii loo sixi lahaa loo sameyn lahaa adiga wuxuu ii sheegay dhakhtarkii in qarash ku kacayo gaarayso ilaa $20,000 kolley wixii macnaha aniga dhinacayga aan u qabtay wixii kaleeto macnaha waxaan ku rajinayaa dhibanaha asaga in sharxi doona kolley waa in markaas anaa si